بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد waxaan rabaa halkan inaan hambaliyo iyo bogaadin uga jeediyo gudoomiye Cabdisaaq Khaliif Axmed gudoomiye hambaliyo halganka meel wanaagsan baad kaga jirtaa waqtigii loo baahnaa halganka inaad ka dhex muuqatidna waad ka muuqatay maanta nin loo tilmaamayo magaaladan gudaheeda Cabdisaaq Khaliif halganka wuxuu ka qabtay ma jiro meeshaad ka taagan tahay iyo meeshii asalay gobolada aad ka taagnayd inkastaaba waa ka dirigsan yahay deegaanka jooga anu waxaan ahaa siiba dhalinyartii codkooda bixiyay ku doortay gacantiisa ku doortay baan ahaa gudoomiye kugu soo saaray shalay markaan ku dooranayay aan bacadka u taagnaa aan codkayga bixinayay waan ogaa inaad maxaa la oran jiray dareenkayga dhabta ka turjumaysid hambaliyan ku leeyahay gudoomiye mar labaad iyo mar saddexaad hambaliyo waxa la yiri ninka ragga waxa la bartaa waqtiga adag waqtiga bulshadaadii iyo dadka ay garab istaagtay waxay ku tusinaysaa ragnimadaada iyo siyaasadda yarkaad ka maraysid inaad maanta halka la soo gaadhid kursigana dhalinyartu iyo deegaankuba war way ka hayeen waana kugu raacsanaayeen waana kugu taageerayeen waxaan leeyahay gudoomiye halganka meeshaad kaga jirtay oo ku xusi doonaa markaan hambaliyada iyo bogaadinta gudoomiyaha ka imaado waxaan rabaa halka inaan laba kalmadood u mariyo ragga kale ee weli ku hadhay maamulka Somaliland waxaan leeyahay raggii waxtarka lahaa qiimaha lahaa quurista lahaa dhiigga lahaa waad aragtaan halganka meesha kaga jiraan iyo sida loogu shaqay idinkuna dhiigaygii baa tiin oo idin baacin mayno waqtigu intuu goor yahay banaanka istaaga oo iskifeeya oo kaalaya dalkiina waxa weeyaan wax maanta loogu haray Somaliland oo laga sii sheegto maanta dhulbahanta ku maxaa la oran jiray matalasan ma jirto dhulbahanta maanta Somaliland ma joogo gaar buu istaagay siyaasadiisu madax banaan yahay deegaankiisu madax banaan yahay waxa weeyaan waxaad ka qabataan badulshaar baad ku tihiin Somaliland maanta cad kursi horaad u qaadateen maanta cad kursigaad qaadan jirteen ka tanaasula kale deegaankiina oo imaada dadkiina nin kastoo ninkaaga wax ku tahay ninka tiisa daryeela waa tu kala ku daraa maxaad u qaban karaysaan hadda balsaaq maxaad ka qaban karaysaan haddii aad maxaa la oran jiray aadan maanta deegaankaagiiba aadan waxba ku ahayn maxaad ku noqon karaysaa isaaq waxaan leeyahay raggaas isu sharaxaya gudoomiyanimadii baarlamaanka ee wixii idin dhiibtaaba idinka waalan hadalka gabagabadiisa waxaan leeyahay SSC dhammaan iyo hiil walaalba halgankii aynu ku jirnay meel gabagaba u maraya weli maxaa la oran jiray farkama qodnaa la oran jiray meel wanaagsan buu marayaa xogo badan oo la soo gudbin karin baa jira yaa laga niyad jabin halkan ku meel wanaagsan buu marayaa guul baynu ku dambeynaa insha Allah bismillaahil kariim dadkii qaxayo deegaanada xaraaraha degan waxaan leeyahay dhaxantii aad seexanayseen iyo kanaacada u baxdeen guusheedii baa meel dhalas insha Allah bismillaahil kariim dhawaan guriga inaad ku soo noqonaysaan idinko nabada xornimadii iyo sharaftii aad in badan raadinayseen baynu midhaheedii gurananaay ducada aynu ku soo kaabno. Assalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.